كبنية سر رسمي هو قولي ستي اسمها بريشك صدحات يلانيسو عاصمة الصومال مقالة هرقيسة إذا صبحني مدكيسا كشركة جنقلة كونستريشن كبنية وكاشانيسا دولة دوسة مقالة هرقيسة يا بلودي وجهي ugu horeeyay ee hawshan oo ah banaynta goobta bariishkan laga dhisayo ugu horeynkaasi waxa ka hadlay injineerka shirkadda Janagale Construction Company oo iyadoo hawshan ku guuleysatay injineer Cabdi Baasit Janagale waxaana uu yiri maanta waxaynu joognaa bridge-kii saddexaad oo aanu bilowgiisii gacanta saarnay anigoo ku hadlaya magaca shirkadda dhisaysa bridge-kan saddexaad oo ah shirkadda Janagale Construction Engineering Company shirkaddaasi runtii khibrad badan ayay u leedahay bridge-yada dhisitaankiisa insha Allah maanta ayaanu gacanta saarnay bilowgiisii oo clearance-kii baa noo socda survey-gina uu noogu xigi doonaa sidaas ayaan hawsha wada doonaa ilaa aanu taska amuudda iyo hawlaheeda oo dhan wada gaadhno insha Allah taala sidoo kale injineerka dawladda hoose magaalada Hargeysa Ibrahim Aadan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in bariishkani uu wax weyn u tari doono shacabka Soomaaliland iyo shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa baahi weyn ay u qabeen bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa waxaana uu yidhi gaadiidka sida ceeryoonka ah imika caasimadda dhexdeeda ayaa waxa aan doonayaa in farsamahan maadaama ay hawsha bilaabantay inaanu sameynay alignment-kii uu ku dhacayay bridge-kaasi uu marayay waxaan markaas si gaar ah uga codsanayaa dadweynaha ku ganacsanaya ama ku dhow goobaha aanu calaamadinay inay maadaama ay maanta oo ay bishu tahay afar ay shaqadii bilaabantay inay sida ugu dhaqsaha badan leh uga guuraan si ay hawsha uga sidoo kalena waxa isaguna halkaas ka hadlay agaasimaha fayadhowrka dawladda hoose magaalada Hargeysa waxaana uu mahadnaqay cid kasta oo hawshan gacan ka geysatay dhisida bariishka saddexaad ee yeelanaysa caasimadda Hargeysa ayaa waxa qiimaha uu ku baxay iska kaashaday hay'adda Manhal dawladda hoose magaalada Hargeysa iyo dawladda dhexe ee Soomaaliland bariishkan ayaa noqon doona bariish casri ah oo aan hore looga dhisin geeyiga Soomaalida isla mar ahaantaana la jaan qaadi doona bariishada casriga ee caalamka haatan ka dhisan Cabdiraxmaan Al-Maxirsi telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV